بشراكم بشراكم شهر الصوم أتاكم بشراكم بشراكم يا أهل الذكر اللهم اقبلنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضلا يوتيوب جنالك سبسكرايب صار مقال كان لايك صار مفانتي aadi aad u mahadsan tahay ra-iisul wasaaraha dalka Soomaaliya oo lacag 1 milyan gaaraysa jeebkiisa ka dhiibay dowladda Soomaaliland guddoonsiye daawasho wax adiga ajiibteen oo aan isku kin yeeray oo ahaa dhibkii masiibadii ka dhacday magaalada Hargeysa suuqii weynaa oo aan aad uga xunnahay ka shacbi Soomaali ahaan shacbiga Soomaaliland waxaan uga tacsideynaa arintaas masiibada ee soo gaartay waana ka xunnahay ka dawlad ahaan waana garab taaganahay walaalaheen Soomaaliland waxaan rabaa halkan inaan si gaar ah ugu sheego in shacabka Soomaaliland dadkii masiibadaasi ka soo gaartay magaalada Hargeysa oo markasta noo soo gurman jiray shacabka Soomaaliland markasta way noo soo gurman jireen dhibaatooyin markay qabsadaan wayna garab istaagi jireen sida darteed ka dawlad ahaan dawladda federaalka Soomaaliya waxaan go'aansanay inaan ku tabarucno lacag gaaraysa 1 milyan oo US dollar ah wixii karaankeena ka badanna waa dadaal ah waa ku jirnaa haddii Allah subhanahu wa ta'ala idmo shacabka Soomaaliland ganacsatadii ku hantida iyo maalka weysay waxaan leeyahay waa ka xunnahay wixii idin soo gaaray walaalaheen ayaa tiin markastana waa idin garab taaganahay nagu tashta habeen iyo maalin garabkiina ayaan taaganahay insha Allah ilaahayna waxaan ka baryaynaa intii aad ku weyseen oo ku qasaarteen oo idin kaga gubatay ka badan inuu ilaahay idin kugu bedelo sabar ayaana loo baahan yahay waa masiibo xun waa xanuun adag waana ka xunnahay dhammaan shacabka Soomaaliyeed aad ayay uga xun yihiin بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رئيس الوزراء كحيين وزير رضا قدوميها بنجي دحى جناستا شرفت